واحد تبيع إذا ما كسر يوم يروسيك نستا ما سند نستا نستا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اما بعد سلام بلارن كبعدي waxaan meeshaan kula wareegaynaa cutubyaha kamid ah ku biiray ciidanka Niisa kuwaas oo ah ciidankii Beesha Raali Xuseen oo hore uga tirsanaa Jubbaland Axmed Madoobi eedeysanaha ahaa oo tagay hal yar oo kaftana intaan ku soo dhaweynin mas'uuliyiinta wuxuu yiri guulee Jocfar Samantar abdama laha awrkii xun iyo aaranku dhalo abtina kaama haro meel hadduu aan ku leeyahay nimanka mareexan oo reewa shirmaaka iyo cali maxamed iyo meelaha nimanka ku jira reebtiga oo yihiin reebtiga waa keenay reebtigin dawladnimada u hiliyaan ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آدي أدبان نتمركوا كود سلامة هيا آدي أدبان وأبو فرح حسن هاي رجعن قيمها بدن حقيقيا وحان اسنيه كراه رجع له شرف بدن كرامة بدن عيدا نمدو دون أي موقتو باتهين soo dhawaada ku soo dhawaada dawladnimada laga bilaabo saacadan waxaad hoos tagtaan hay'adda Niisa waxaad tihiin askar Niisa ah oo dawladeed baatiin xaquuq kasto oo qof bilaadan uu yeesho waxaad ku leedihiin haday darajo tahay iyo dalacsiin haday tahay xaquuq iyo mushaar haday tahay wax kasto oo askari uu baahan yahay xaquuqda dawladda Soomaaliyeed baad ku leedihiin gaar ahaan hay'adda Niisa ku leedihiin soo dhawaada وأكون فرحسنا حقيقيا سيدا شرفتي كرامة أو إلى لسان شخصية دين اللي قبل الله قبل كا دقمدي بلا حواء جوكتين وإن حبت كردين إيوه قرن ماذا سومالي إلى لسان أنت بقى قف كستو سومالي أو قانجارة ومسؤول قف كستو مسلم أما قف كستو بلاد وقانجارة ومسؤول قف كستو مسلم ومسؤول وحنا مسؤول كي هي نفتيسة قريقات هي ستين هي الشخصية دي إني بوتكبد بعد سنة ومدة الصوماليات نبنا وقومين نجي سنين ومرقاتي ما كنا أنت سيدا إلهي سبحانه وتعالى وأوجي عندك وأوجنا هاي سيسيالها كم بدان كوكلا مغنين سيسيالها كم بدان كوكلا مغنين رجعنا عدو تنوكم أنا كلا مغنين حدي عسكر ساكت دجال الشيء أو أي تهين أما أسبوعين كنجرتين قرية حق اللي كان يجري هاي وحد كنا كرتان كوي عند أحد جوني هذين كرسوني بعدين قمنا واحد كرسوني الدراء أو عن قمنا مجرت wixii barnaamij ah oo raggan ay tabanayeen ama ay qoriga u qaateen oo qabaylada Soomaaliyeed sabeeyay oo qoryaha qaatay ay qori ku heleen laga bilaabo saacadan waad leedin hadii aan taas ay idin la qaadaya insha Rahmaan waxaan u maleynayaa shakhsi aan wada shaqeynay iyo shakhsi aan wada shaqeynay shakhsi u sheekeeyatihiin waxay ugu dabcan Soomaalidu way isxamataan anu waxa yar kale oo leeyahay waxaan waa la yaqaan laakiin balan daro leeyuma xanto سوساس ما وعلى كل واحد ما كان واجرتها أضيع وأديك هي دتك سوساس يلا يواكل جبيا والي لا سوما كان الجبين تنا هده وحي حقه يا شال كان الجبيا يوقف كسر لما كان الجبيا وحن بلن قاضي مركل يدك عليا وصح باشان رأى بهاي أم رأى ذركي حقوق بدن أمد الصوماليات أو قبل كادجن إلى هايين أو كم غني ضاقنا كرا صوبتم حي هاد ذهب المهو بيسنا لها أنت أنا أدينكم الذين هذا تبادل هذا عندهم بهذا وركات ليش وحنا مالنا ماشي كم حساب وحنا هذا علينا يا رجي وحنا هذا علينا يا رجي قبيل كم يدها أو أرنتان أيدا أبابولي أو برامج كان سميه وهم علينا يا كورنيل كا ولا الكي ننا هذا إسبرناي ما ندور النمذج اللي يجوه الرئي درجة وقوانا يسنفاق هينه دولة الصومالية قرنك الصومالية وكبر برياسو إنتان ولو سرقال الجعلي هاي والدولة الصومالية اللي قد جعلي هاي ما ملكيسية أقونتي ساعة حد إلهي إدمو حدا وحكم ذي هاي ثلاث كسروا قيبت وكم ذي هاي وضلك جارها أفرتني استحاد لكن وحصور تقل عين الأركان وذا ديره وإذا ماذا حوق دلك الصومالية رجع أوجس الرأي كم ذا رجع أوجس الرأي كم ذا هذا قيب وكم ذي هاي
oo qayb buu ragga ugu sarreeya ka mid yahay laakiin wuxuu noqon doonaa insha raxmaan oo kartidiisa iyo aqoontiisa ay gaarsiinaysaa iyo shakhsiyadda uu leeyahay iyo darajadu uu wato uu iska soo qaadanin ee kulliyada iyo ku soo qaatay aqoon wuxuu noqon doonaa ilaahay idinkiis sidaas ayada ah hadal gaaban iyo hawl badan baan rabnaa waxaa ogtihiin bulshadeenadii waa dhiban tahay markhaati waa ka tihiin soo maha biilkii carruurtannadu waa maqan yahay hawadaanu ku jiraa soo maha yaa lacag ka shirkadii Soomaaliyeed way xiran yihiin ganacsatadu waa dhiban yihiin motooradii iyo leerarku waa dhiban yihiin dadkaan annaka qori u qaadnay oo ballanna ka qaadnay wixii dhibo inaan ka qabanno soo saas mee ballantanadii soo dadkanaga hooyaalkana iyo carruurtannada iyo ummaddaanada iyo qarnimadan inaan difaacno soo maahayn laga bilaabo saacadan ciidankii halkan ugu timaadeen baad xawaajibaadka la qaybsanaysaan shaqaana qabanaynaa hawshaan shacabka culayskoo saaranna ilaahdiisa waa ka dulqaadaynaa wiilashannada waxaa leey Soomaaliyeed reegadaha ah Axmed eedaysana waxba in ma hayo wallahi soo waxba u haynin Axmed qof aan iga saaxiibsan ma jiro Axmed ha isla markasta hadlay saaxiibkii ba dhaw arteen Axmed wax bila aadan oo waqti fogna waa isbarnay wax bila aadan dhaxmaro oo aan dhaxmarina waa kooban tahay waa wax kooban baa la dhigi karaa oo yar laakiin shakhsiga uu yahay dadka maanta uu qaldahayo oo AFC-gu uu ku qaldahayo shakhsi uga aqoon badan baa waxba dalkan oo ma hayo dadkan oo ma hayo in marka nin eedeysan oo joogo meeshii la yiraahdo Kismaayo balaxa uu xabad ka rido oo wiil halkan joogo uu difaaca ma aqbali karno soo dhawaada si waxa u soo dhawaataan walaaltinimo iyo saaxiibtinimo leh kuna soo dhawaado qarannimo Soomaaliyeed waxaan ka hadlaynaa qabiil ma qabiil saaka waa maanta ka gudbaynaa waxa u gudbaynaa qarannimo Soomaaliyeed aad baa u mahadsantiin Allah idin barakeeyo Allah idin xifdiyo guud iyo gobonimo isku ogna ani maxaa la ballan qaadaya ani waxaan ballan qaadayaa ta wadaad yar ma wadaad yar already waaya wuxuu yahay maanta horeyna darajada waa u watay xilka gobolka ama oo kamid ah waxaan ku wadaa qaybta oo saddexda gobolna oo saraakiishada sare aan waa kamid yahay maanta laakiin ragiinaan oo darajo leh oo saraakiil ah oo ciidamada Soomaaliyeed ururo iyo guutooyin xukuntay inaad aragtaan baan ballan qaadaya insha Allah raxmaan hadii alle aad baa u mahadsantihiin farxad iyo karaamo gaar ah ay tahay waxa hadalkaygu qaar badan oo kamid oo sibqanaya sababta raggaan la jecel gaar ah anigu u leeyahay wallahi la jecel gaar ah raggaan u leeyahay wallahi la jecel gaar ah raggaan u leeyahay waa idin dhaaranaya sababta waa raggeygii waa walaalahay waa wiilaan adeer u ahay waa saaxiibaday ragga gacantaanadu isqabata ma ahaynba saa adinka oga xishooteen arintaas oo oga taagneedeen waa idinka mahad celinaya waxaa maanta iiga sharaf badan waxaa maanta iyo mar kastaba xusi karaa taariikhdu ay xusaysaa raggaan si meesha uga istaageen iyo seekaawahan saaka dagaalka inaan galno sababay oo kolba dhinac naga soo galayo diyaarad baan celinayaa laha oo dagaalka saaka sababay dadka wata waa taqaanaan iyo meeshu ka yimid Soomaa ya raggaas waxa idinku ka xishooteen waa ka xishoon waayeen ogaada taariikhdan meel bay ku qoraysaa kuwa ciidankan xukumay oo ama heer guuto ahaa heer qayb ahaa ama niise xukumo gobolkan u xukumo saraakiisha ayo jananadii iyo korneelada ahaa oo intay ciidankoodii furfureen qarannimadii iibsaday jabhadnimo u leexdayna waxaan hubaa in ay shakhsiyadooda aqoon waayeen laakiin ay shakhsiyadiina taqaan wiilasha yarka ay shakhsiyadooda garteen raggan ka hadlay waa fahmaysan Soomaa aad baa u mahadsantihiin sharaf iyo karaamo kurkiina ha haato waa isla joognaa ilaahay idinkiis waxaan ka hadlaynaa oo dhan ayadoo ficil ay dhici doonaan nin kasto wixii uu watay buu wadanaya wuxuu ahaanaya wixii dawladda laga rabana waa ku daraynaa insha Allah raxmaan hadii Allah barakallahu fiikum waa dhamaysanay wasiirka waad maqlayseen hadalkiisa hadalka ma dambeeyo marka koobaad laba waajibaad baa jira midna qaranka lagu leeyahay midna adinka lagu leeyahay adinka waxa lagu leeyahay hoggaansanaan iyo amar qaadasho iyo gudasho waajibaadka la siiyay qarankana waxa lagu leeyahay xuquuqdii linka rabay inuu keeno wax kale meesha yaalban intaasiba ku dhantahay marka waxaan kala u baaqayaa nimanka dhalinyarada ah oo ama ciidamada qalabka sida xoogga dalka Soomaaliya ama nabad sugidda ama booliska oo geedaha fooda ku haya imaada xeradin anigu xeradan waa taydii waa maanta ugu horeyso waa xeradaydi waa dadku wax ka dhisaan kamid ah marka imaada xeradin kuwa kale oo dhalinyarada